Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel Osman Banjar for studying the English language. Today we are going to study the 5WH questions and how for basic conversation. Kusoo dhawaada walaalayaal janaalkeena Osman Banjar. Haddii aad ku cusub tahay subscribe dhaho, like ta noo saar, commentigana wixii dhiirigelina iyo su'aalooyinka aad kaga jawaabaysid waad ku soo qori kartaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Sidii caadadiina ahayd waxaan isweydiin jirnay laba su'aalood oo ka horeeya casharka, balse maanta cashar cusub ayaan bilaaban doono. Casharkeena ayaan toos u gudagelin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Maanta waxaan qaadan doonaa wax la yiraahdo who ayaan baran doonaa cashirkeeni. Waxaan qaadan doonaa maanta cashirkeeni 23 lesson 23 ayaan qaadan doonaa. Lesson 23 ayaan qaadan doonaa cashirkeeni 23. Okay, waxaan ku baranaynaa guud ahaan horta asbuucan waxaan baran doonaa wax la yiraahdo 5WH questions and how. 5WH questions waxaa la yiraahdaa waa who oo ah kuma, what oo ah maxaa, where oo ah halkee, when oo ah goormee, why oo ah sababtee, iyo how oo ah sidee. 5WH questionskan waa u muhiim qof waliba oo raba in uu warbixin diyaarinayo, qof walba oo rabo questions inuu qof wax weydiinayo, su'aal weydiinayo qofka. Marka waxaan isku dayaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan barano these 5WH questions kana isku dayi doonaa. Marka kuma dheeraan doono mid waliba. Maanta mid waliba waxaan ka soo qaadan doonaa wax la yiraahdo basic conversation ayaan ka soo qaadanaynaa. Basic conversation about ayaan ka soo qaadanaynaa. Basic conversation ayaan ka soo qaadan. Basic markii lagu dhaw waa bilow, conversation markii lagu dhaana waa wada sheekeysi. Conversation waa wada sheekeysi. Basic conversation waa wada sheekeysi bilow ah oo basic ah. Basic conversation ayaan ka soo qaadan doonaa mid waliba. Maanta marka erayga ugu horeeya soo qaadan doonaa eraygaas oo ah who markaad arkaysid waa WHO. Who waa kuma. Who markaad ku dhawaaqaysid W-da way aamusan tahay, laakiin who markii la qoraa waa WHO. Who W-da way aamusan tahay waa kuma. Maanta waxaan qaadanaynaa marka basic conversation. Wada sheekaysigeena inta aan guda gelin waxaan rabaa erayada ku cusub inaan meeshan kugu sharaxo marka koowaad. Okay, erayada kugu cusub inaan meeshan ku qaadano oo ku sharaxno. Who conversation keena maanta erayada ku cusub waxaa ka mid ah prophet. Prophet waa nabi. Waa BROPHET. Prophet waa nabi. PH horaan kugu sharaxay hadday isku timaado in F oo kale loogu dhawaaqayo oo la dhahayo prophet. Prophet waa nabi. waa PROPHET. Prophet waa nabi. Waa erayada nagu cusub oo aan ku qaadanayno who ayuu ka mid yahay. Erayga kaleento waxaa ka mid ah oo aan ku qaadanayno oo who waxaa ka mid ah okay, peace. Kelmadda peace markaad aragtid, peace waa nabadgelyo. waa PEACE. Peace waa nabadgelyo. waxaa jirto eray u dhow oo isku dhawaaq yihiin laakiin qoraalka iyo macnaha ay ku kala duwan yihiin. eraygaas waa peace
waa P-I-E-C-E. meeshuu kaa ka yahay nabadda P-E-A markuu kaas ka yahay kan waxa weeyaan waa P-I-E-C-E. peace waa nabad. peace tan kale ee isku dhawaaq yihiin waa gabal. piece of cake markaa dhees gabal doolsha. cake waa doolshada ama keega, okay, ama toortada. marka peace waa nabadgelyo, peace waa gabal. labadaasba waa loogu dhawaaqaa. peace iyo peace waa isku wada mid dhawaaqooda, laakiin qoraalka ayay ku kala duwan yihiin oo keliya. okay, waxaa kale inta soo qaadanaynaa kelmadan b haddaad aragsaan waa ahaasho. b ha ahaado waay, ahaasho ku macnaynaya b idaan marka aragti. okay, kelmadda kala soo qaadanayna waxa waaye upon. waa ugu dhawaaq kartaa as American upon ama upon as a British upon. marka upon waxa weeyaan waa korkiisa ama korka ama dusha. waa ugu macnay kartaa upon ama upon. okay, waa isla fahmnay intaas. okay, him. kelmadan him waa object. hore waxaa usoo baratay he oo ah isaga iyo his oo ah wixiisa. him waa jirtaa waa isaga, laakiin waa object. waad baran doontaa qaabka ee objectiga wax la yiraahdo. marka him waa isaga. marka aan soo qaato marka kelmadda peace p upon him. peace p upon him waxa weeyaan waa peace nabadgelyo. p ha ahaato upon him isaga dushiisa oo u taagan marka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaato. oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaad maqashid magaciisa oo aad dhehaysid nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaato. okay, ama luqadda Englishka marka waxaa lagu yiraahdaa peace p upon him. intaas waa isla fahmnay. okay, waxaan kale inta soo qaadanaynaa last. waxa la yiraahdo last waxaa la dhahaa ugu dambeyn, ama last wax socdo waa la dhahaa. last socosho waa la dhahaa. wax socdo macnaa socodka caadiga ma ahan, waa socdo howl socoto kale. last waa la dhahaa socoto. last ugu dambeyn waa la the last person, qofka ugu dambeeya. marka last waa ugu dambeyn. okay, aan ku fasirina hadda. last waa ugu dambeyn waa last. okay, waxaan kale inta soo qaadanaynaa wax la yiraahdo messenger. waa messenger. messenger waa rasuul ama fariin wade. messenger waa rasuul. okay, rasuul messenger. okay, messenger waa rasuul. dhammaan shaqalada ku jiro waa wada messenger. shaqalada ku jiro waa wada taas oo inaad maskaxda ku haysaa. messenger ana ugu dhawaaqay. messenger waa rasuul. laakiin waxaa jira wax la yiraahdo fariin. marka hore waxaa leedahay ma ayaa leedahay message. ma ayaa leedahay laakiin waa me ayaa loo qoraa. s okay, age message aa leedahay. search ma dhehaysid, waxaa leedahay message waa fariinta. messenger markaa dhehaysid maxaa waay? waa rasuul ama fariin wade, qofka fariinta loo soo dhiibo. rasuulkeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ahaa fariin wadihii alle oo fariintii ama quraankii iyo diinta islaamka ay anagana soo gaarsiinay. marka messenger waa rasuul. si kale hadii loo macnay fariin wadana waa lahaa. okay, intaas waa isla fahmay. eraygeena kale inta aan qaadanayno waxa waaye world. waa dunida. waa WORLD. kelmadan inta badan dadku waxay ugu dhawaaqaan world. qalad waay. world ma dhehayso, waxaa leedahay world.
waa British markuu yahay world, markuu American-ga world oo dha world arto meel dheer ka soo geliya asagoona toos arto ugu dhawaaqeen. Marka world alada world girl world girl ama girl meesha ka dhigay sidoo kale camal ah world ala ahaanad ugu dhawaaqay world alada world. Okay, waa isla fahamna umaleyna taas. Okay, world ayaa leedahay world waa WORLD world ma dhihis world alada dunida. Okay, dunida aan ku noolnahay. Okay, intaas waa isla fahamna. Marka waxaan kale intoo soo qaadanaynaa ereyga kale nagu cusub ee cashirkeena maanta. Okay, erey kale nagu cusub me waa aniga. Okay, me waa aniga, I waa aniga, me na waa aniga. Laakiin me mar walba jumlada kama bilaabato. Tan markaad isticmaalayso waa si gaar ah waaye, waxyaabo kale gaar ah waaye. Laakiin me jumlada mar walba kama bilaabato. Okay, to markaad arkaysid TOO markaad aragtid to waxaa la yiraahdaa waa to laba macne leedahay. Sidoo kale waa la dhahaa to sidoo kale, ama to waxaa kaloo la yiraahdaa add. Too late, I am too late, aadan u daaho waa late. I'm too late, aadan u dah. Marka to add no loo isticmaalaa, very add waa loo isticmaalaa Englishka. To markii la dhaho add waa macnaa waxay kasii awood badan tahay very. Okay, to laba macne leedahay. Waxaan ku dhahay labadeeda macno sidoo kale waa la dhahaa to waxaa kale intoo la dhahaa add no waa la dhahaa kelmadda fasiraada add. I am too late, aniga aadan u dahay. Okay, me too markaad dhahdid waxaa waaye anigana sidoo kale. Me too, anigana sidoo kale. Okay, waxaan qaadanaynaa marka conversationkeena anaga oo usii kala qaadan doono A iyo B. Okay, A ayaan ka bilaabeynaa. Wuxuu leeyahay who are you? hal mar aan wada aqriyo. Who are you? I am Osman Abdulgadir. And you? I am Ali Omar. Who is your prophet? Who is your prophet? My prophet is Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Peace be upon him. Peace be upon him. Marka la soo gaabino waxa laga soo gaabiyaa PBUH. Okay, and he is the last messenger in the world. He is the last messenger in the world. Who is your father? Who is your father? My father is Abdul Qadir Banjar. And you? My father is Omar Shire. My father is Omar Shire. Who is your teacher? Who is your teacher? My teacher is Osman Pancher. And you? Me too. My teacher is Osman Pancher. Bye. Okay, bye. Bye. Markaad qoraysid waa BYE. Okay, markaad dhehaysid OKAY waad qori kartaa ama OK waa kasoo gaabsan kartaa. Okay, bye. Waayahay, nabadgelyo. Okay.
marka basic conversation about who ayaan qaadanaynaa dhawaaqi waan fahmnay anagoo sharaxeena marka who are you who kuma are you ad adigu tahay who are you adigu kuma tahay markaad qof kale weydiinay sidoo kale ama isaga waa kuma marka dhigayso xaalada who is he isaga waa kuma ama ayada waa kuma marka dhigayso xaalada who is she ama ayaga waa kuma marka dhigayso who are they ayaga waa kuma okay adiga waa kuma marka conversation keena soo noqono who are you adiga kuma tahay okay anigu waxaan ahay Osman Abdulqadir I am Osman Abdulqadir meeshan adiga magacaaga ku bedeli kartaa I am Ahmed Ali I am Amina Mohammed I am Aisha Abdullahi sajacasha u bedelna marka meeshan anigu waxaan ahay I am Osman Abdulqadir waxaan ahay Osman Abdulqadir baan ahay okay and you adiguna I am Osman Abdulqadir and you adiguna I am aniguna waxaan ahay Ali Omar I am Ali Omar aniguna waxaan ahay Ali Omar baan ahay who is waa kuma who is waa kuma is waa aan ku fasirna who na waa kuma who is waa kuma your waa waxaaga your prophet nabigaaga waa kuma your prophet okay wuxuu yiri marka my prophet nabigaygu is waa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf waa sii wadi kartaa directly laakiin saddexan ka soo qaadanayna my prophet nabigaygu is waa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib nabigaygu waa Muhammad waxaa dhalay Abdullah waxaa sii dhalay Abdul Muttalib okay my prophet is Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib and marka my prophet nabigaygu is Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib macnaha marka peace nabadgelyo be ha ahaato upon him dushiisa peace be upon him nabadgelyo dushiisa ha ahaato and he isaga oo ah nabigaygu is waa the last messenger rasuulkii ugu dambeeyay in the world ee dunida he is the last messenger waa rasuulkii ugu dambeeyay in the world ee dunida world ee dunida who is waa kuma your father aabahaagi waa kuma my father aabahay is waa Abdulqadir Pancher waaye marka adiga aabaha magaciisa meeshaas ku bedelanaya ku qoranaysa iyo awowga okay my father is Abdulqadir Pancher aabahay waa Abdulqadir Pancher and you adiguna my father is Omar Shire aabahay magaciisa waa Omar Shire ayuu yiri asagana okay who is waa kuma your teacher macalinkaaga my teacher macalinkaygu is waa Osman Pancher waa macalinkayga and you adiguna me too aniguna sidoo kale my teacher macalinkaygu is Osman Pancher waa Osman Pancher ayuu yiri bye ayuu yiri qofkan nabadgelyo bye qofkana wuxuu yiri okay waa yahay bye laakiin marka aragtid wada sheekaysiga inaad sii wadid bye-dan ma ku dhawaaqaysid oo ma dhehaysid qof markaad wada sheekaysanaysaa ilaa wada sheekaysiga niga dhamaado bye waad joojinaysaa laakiin anaga maadaama cashirkeeni meeshan uu ku egyahay bye ayaan isticmaalaynaa okay waxaan mar haddaan ku soo celiyo who are you kuma tahay I am who are you kuma tahay I am Osman Abdulqadir waxaan ahay Osman Abdulqadir and you adiguna
I am Ali Omar. I am Ali Omar. Anigana waxaan ahay Ali Omar. Who is waa kuma your prophet nabigaaga? My prophet nabigaygu is Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib. Ma nabigaygu waa Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib weeyaan. Peace nabadgelyo P ha ahaato upon him dushiisa. And he is the last messenger. Waana rasuulkii ugu dambeeyay in the world ee dunida. Who is your father? Waa kuma aabaha? My father aabahay is Abdulqadir Banjar. Waa Abdulqadir Banjar. And you adiguna? My father is Omar Shire. Aabahay waa Omar Shire weeyaan. Who is your teacher? Waa kuma macalinkaaga? My teacher macalinkaygu is Osman Banjar. Waa Osman Banjar. And you adiguna? And you waxaad isticmaalaysaa qofka isla kuwa su-aashii haddaa rabtid inaad ku celisid. Okay. Me too aniguna sidoo kale. My teacher is Osman Banjar. Macalinkayga waa Osman Banjar. Bye. Nabadgelyo. Okay. Bye. Waayahay nabadgelyo. intaas waxaan u maleynayaa inaan isla fahmin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.